موضوعية قار ما jecel inaan ka hadlo xitaa haddaan ogaal u leeyahay gabadhan inta idinkaga muuqata smart hadaa maqli jirtay smart way dhaaftay yacni sheekada dhan way fahansan tahay ragga labay u qaybiyaan waa booyamaan da ahaan maaha inuu midna yar yahay midna weyn yahay tusaale ahaan ninka maankaay kelmadaha marka xidhiidhada lagu guda jiro kelmadaha macaan kuma degdego halka boygu uu ku degdego obviously tan waa iska caadi waa la ogyahay okay tan labaad ka soco tan labaad kan kale ee boymaanku ma dhaho waan ku jecelahay markiiba xidhiidhka marka saa loo bilaabo halka boygu markiiba uu ku degdego tan xataa dadka inta badan waa og yihiin hadday bilaabanaysaa sheekada meesha ugu daran labadii lasoo dhaafay ragga inta badan way ka siman yihiin yacni qof walba waa wax caadi ah laakiin labada ugu dambaysa haddaa la gelayaa muuqaalkan like noo saar si meel dheer uu gaaro siina sheergaray aad u mahadsan tahay tan saddexaad qodobka saddexaad ee ku kala duwan waxa weeyaan boygu markiiba daryeel fara badan jacayl fara badan hadiyado fara badan soo dhaweyn fara badan baad ku arkaysaa xiriirka bilowgiisa halka ninka maanka ah aad kala saareen niyuumku dooyaysa kuma doonayo sug tan afraad ha ii gelin sug ha idin weydiiye gabdhaha ileen qofka iyo ka rabo ma rabaan sababta loo dhahaysaan waay miya yacni qofkii ku degdego ama wax siinaayo qofkaas waa badaqoonba miya war gabdhow sheekadan comment ka dhiibtabo gabdhow sheekadan commentiga igula wadaagab nin ku danaynaay nin aanan ku danaynayn kee rabtaa tan afraad noogu sii dar tawad bas waxa weeyaan qofka boyga markiiba xiriir aanu sameeyno ka dalbanaya halka maanku aanu ka dalbanay been xiriir sameeysan adoo xiriirku ku wada jira oo ka raaliyo badarkaysa legend hadaa maqli jirtay waa kaas afartii shay oo lasoo sheegay tan saddexaad oo aan su-aal ka qabo iyo tan afraad ninka ragga ah oo gabadhii ay isbartaan oo isla socdaan gaarsiiya heer iyadoo aan laysdhihin waa ku jeclahay waa jeceshahay ama jacayl ma wadaagnaa heer inuu gaarsiiyo gabadha inay jacayl wadaagaan yacni gabadhii ay is aragto in ay xaalad jecel ku sugan tahay qofkii gaarsiiya gabadha ninkaas waa legend nin ma aha nin rageedna ma aha labadaas buu dhaafsiisan yahay yacni waa nin legend ah laakiin tan saddexaada comment yar ah uga baahna qodobka saddexaad ee ku kala duwan waxa weeyaan boygu markiiba daryeel fara badan jacayl fara badan hadiyado fara badan soo dhaweyn fara badan baad ku arkaysaa xiriirka bilowgiisa halka ninka maanka ah aad kala saareen niyuumku dooyaysa kuma doonayo gabdhow ma waxaad jeceshihiin ninka idin keergareeyo mise qofka aan idin keergaraynin adiga haddaa nin tahayne afartan shay ma ka bixi kartaa commentiga noogula wadaag tawad bas waxa weeyaan qofka boyga markiiba xiriir aanu sameeyno ka dalbanaya halka maanku aanu ka dalbanay been xiriir sameeysan adoo xiriirku ku wada jira oo ka raaliyo badarkaysa haddaa nin raga tahay afartan shay haddaad ka bixi karto nin raga ayaa tahay tan afraad haddaa kasii baxdane legend ayaa tahay oo nin rageed xataa waa sii dhaaftay haddii afartan aadan samayn karinne nin caadiyaa iska tahay gabdhow adigana intaan hadda tartanka lagu samaynayo midee ugu adag waa is leedahay qofkii kaa keensado waa nin raga aad isdhihileed